لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. waxaan irtaabanayaa ilaahay idinkii khudbadii qiimiga badnayd uu nabigu ka jeediyey calayhi salaatu wasalaam xajkii la oran jiray xajatul wadaac. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقائدنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. xajka xaj aada iyo aada u weyn oo saxaabo fara badan nabiga ay la socotay calayhi salaatu wasalaam buu ahaa. waxaa la oran jiray xajatulbalaaqna waa la oran jiray, xajatulislaamna waa la yidhaahdaa, xajatulwadaacna waa la yidhaahdaa. maxaa nebigu calayhi salaatu wasalaam ummaddiiyuu wadacay oo macnaha uu sagootiyey ummaddiisii, mana xajin gadaasheedna ma xajin, maxaa geeridiisaa xigtay calayhi salaatu wasalaam. wuxuuna u xusay waxyaaba badan oo xalaal ah iyo wax xaaraan ah yuu nebigu u kala saaray oo aada u baahsan, si guud iyo si gaarba dadka looga xaaraantinimaya ama looga xalaaleeyey, dhibaheeduna ay badan yihiin. markaasuu oranaya hal ballaqtu, saasaa xajatulbalaaq loo yiri. wadaacna waxaa loo yiri dadkuu wadacaya xabiibku calayhi salaatu wasalaam. ayuha annaas ismacuu qowlii waacqiluu buu oranayey, fa innii laa adri alqaakum bacda caami haada bihada almowqif abadan. inaan halkan idinkula kulmay ma malaynayo, saasuu oranayey xabiibku calayhi salaatu wasalaam. dadkuu wadacayey oo dadkuu sagootinayey, saasaa xajatulwadaac loo yiri. halkaa nebigu wax badan buu caddeeyey calayhi salaatu wasalaam, oo dadka qof qof iyo dal iyo duuduubba ummadda guud ahaanba wax badan oo anfacaya, wax badan oo dadka dhantaalaya, markay mid mid yihiin iyo markay ummad isku duuban yihiinba yuu nebigu ka wacdinaya calayhi salaatu wasalaam. wax walboo nebigu uu sheego had iyo goor calayhi salaatu wasalaam waa masaalixdeenna, waa masaalixdeenna. qofka markuu u sheego wixii ka xaaraana isaga, xaaraanta hadduu sameeyey dhibba isaga ku dhacaya. wamaa asaabakum min musiibatin fabimaa kasabat aydiikum wayacfu can kathiir. waxba masaa'iboo nagu dhaca waa wax dunuubteeni ka yimid, annagu waxaan sameynay unbaa dhalay. waxaa guud ahaan dadku waxa ay sameeyaan dunuub ahna iyagoo dacfinaya dulliga maanta ummadaha islaamka muslimiinta oo dhan ku degay oo ay la qaxayaan, ay la rafaadsan yihiin. waa dunuubtii afraadda oo badatay oo gacanta la qaban waayey. dhibku halkaasu ka yimid. gafafka marka nebigu ulama jeedin calayhi salaatu wasalaam xagga shirkiga, maxaa yeelay shirkii sanam in loo sujuudo ummaddiisa uga biqimeyn nebigu calayhi salaatu wasalaam. laakiin wixii shirkiga ka sokeeya yuu nebigu uga digayay, sidaan khudbada kusoo qaadan doono in sha allah. ayuha annaas dadow ismacuu maqla qowlii buu oranaya xabiibku calayhi salaatu wasalaam. qowlkeyga maqla, dhegeysta, isla markaa wacuu fahma wacqiluu garta. saa oo kaletana wuu oranayey. maxaa fa innii laa adri laa alqaakum bacda caami haada. sanadkeygan dabadii inaan idinla kulmayo ma malaynayo, ma ogi. wuu saasuu oranayey bihada almowqifkan. markaa nebigu wuxuu taagan yahay calayhi salaatu wasalaam, carafuu taagan yahay, waa maalinka sagaalaadka maanta oo kale yuu taagan yahay. halkaasuu ka hadlayaa. khuduu canii manaasikakum, acmaashiina iga qaata oo ku saabsan xagga xajka. wax kastoo aniga igu aragtaan dabadii, xataa markaan aakhiro aado kaa un haysta oo ku dhaqma. saasuu nebigu ula jeedaa calayhi salaatu wasalaam.
manaasigta xajka nabigay marka ka qaadanayeen. nabiguna markaas ka hor ma uusan xajin baa la yidhi, madiine kama soo xajin. xajkaasi saasaa xajatul islaam loo yiri ayadana. dadow maqla hadalkayga sidaa markuu yidhi yuu dhowr qodob bay soo qaataan culimmadu ay soo guuriyeen. ayuhannaas dadkanow buu yidhi, ina dimaa'akum wa amwaalakum xaraamun calaykum. dhiigyaalkiina iyo maxaa la yidhaahdaa maalyaalkiinu xaaraan bay idinka yihiin. inaad si dulmiya ku kala qaadataan macnuhu waa sidaa. si dulmiya inaad ku kala qaadataan waa idinka xaaraan. weliba markuu mino tegey riwaayadu waxay lahayd ma garanaysiin bishiinaan, maalinkiinaan, makaankiinaan ma garanaysiin. beledulxaraamkii ashhurulxurumkii baan ku jirnaa. sidaa oo kale markuu yidhi yuu markaa odhanayaa ina dimaa'akum wa amwaalakum xagga wa acraadakum buu raaciyey iyo sharafkiina. dhiiggiina inaad ku daadisaan si xaaraan ah waa idinka xaaraam. sida qofka mu'minkaana saddex unbaa la sheegi jiray: ninkii zaani muxsanka ahaa iyo qofka nafta dila iyo ninka ridaaba. saddexdaa qodob unbuu markaas yuu dhiigga muslimka uu ku maxaaliya xalaal garoobaya. laakiin maanta waxaa la isku leynayo waa kursi iyo qabaliyad wax fool xun oo dadka shaydaan u qurxinayo. qabiilkii yaa waxaa laga dhigay litaqaataluu litanahabuu laga dhigay meesha qur-aanku litacaarafuu uu lahaa. markaasay qabaliyad noqotay, qabyaalad bay noqotay. markaa waxaa la isku leynayo waa dowladnimo oo yaa u qurxiya gaalo iyo doolar. dadkii daba wada dadka iimaanka allaha geliyaan leenahay. alaa yadunnu ulaa'ika annahum mabcuuhuuna liyowmin cadiim. in ilaahay la hortaagayo yowma alqiyaama, halkaa la xisaabayo, la miisaamayo, wax walbo ay sameeyeen la weydiinayo, oo wixii wanaag ahaana laga sabaabsiinayo, wixii xumaan ahaana lagu ciqaabayo. laakiin dadka dila iyo dadka dulmiya waa qodob aad iyo aad u weyn. waqad khaaba man xamala dulman yaa nebigu yidhi calayhi salaatu waxaa ilaahay boqorkaa uu yidhi waa hooge kaasu, waabuu hoogey man xamala dulman, tag ninkaasu. marka arrimaha noocaas ayuu nebigu nooga digayaa calayhi salaatu wasalaam. ayuhannaas ina dimaa'akum dhiigyaalkiina iyo wa amwaalakum maalkiina inaad ku kala dhacdaan, kala boobtaan. tuuganimo iyo turuufu waxa la yidhaahdo iyo qalin aad ku boobtaan nimanka dowladaha u shaqaynaya oo qalinka ku xadiya khasnada dowladda ku xadiya. waa halis iyaduna. kuwa odhanaya dibad baan kuu qaadaya, dhul gaalaan ku geynaya, meel daran yaan ku geynaya, lacag 10 kun 20 kun keen, oo beenta sheegaya waxna aan samayn karaynin. nidaamka noocaas ahna kuwa qisha ku qaadanaya iyaguna qishka oo maalkan odhanaya waxaan waa original oo lacag fara badan kaa siinaya, isna waa xaaraam wadada lagu qaatay. wa acraadakum minuu ka yiri qodobkaas uu ku biiriyey halkan. ilan maalin kasta nebigu ummadda wuu wacdinayay intuu xajka joogay calayhi salaatu wasalaam. waxyigaa intaa ku socday. sharafkiina inaad wax ka sheegtaan, quruxdiina iyo qiimigiina, qabiilkiina iyo camalkiina inaad wax ka sheegtaan, isdurdurtaan adinku ansaabtiina, inaad durtaan, isxamataan. sidaas halkaasoo maray iyo halkaasay martay iyo sidaasay ahayd iyo waxa noocaas oo dhan xaraamun calaykum yuu leeyahay nebigu calayhi salaatu wasalaam. ilaa an talqow rabbakum, ilaa rabbigiina aad la kulantaan iyo xaaraan idinka tahay. macnaha ilaa aad ka dhimataan aha. markaa inta adduunya joogtaanba inaad dhiiggiina iyo amwaashiina iyo sharafkiina ku xadgudubtaan waa idinka xaaraan. ka xurmati yowmikum haada, sida maalinkiina aad taagantihiin halkan carafa aad taagantihiin ama mina taagantihiin oo xajka aad joogtaan, halkaasoo dembi dhaaf aad u soo doonateen, qalbi sax ah aad ku soo istaagteen, sida maanta buu xaaraan idinkaga yahay. oo fii shahrikum haada, bishiinan tan ah, uu xaaraan idinkaga yahay. fii baladikum haada, beledkiina kan ah, uu xaaraam idinkaga yahay. qodobadaas aan sheegay yuu weligiinba xaaraan idinkaga yahay ilaa an talqow rabbakum, uu xaaraan idinkaga yahay. alaa hal ballaqtuu markaa nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam, ma gaarsiiyey, ma idin soo gaarsiiyey fariimihii ilaahay idinkiisoo dhiibay oo xalaal iyo xaaraan ka hadlayey.
اللهم فاشهد مركي قرين بو إله قري إله أقوبي مرخاتك أهو فمن كانت عنده يا كمدها خطبديسا قفك أكتيسا وهذا أمانة قفك أمانة ولكن أديبتي فليؤدها إلى من ائتمنه قفك أساقك آمنة وحا هأقوت أمانة ديسا سرها أهاتو مالها أهاتو دولها أهاتو وحضونها أهاتو قف ولوبا أمانة اللي أديبتي سيدا يهيد أدوهم بدلين ها إنكرين هنا كيرين قفك وحيسي هنا ميرميرين هنا خيانين ساسا معنوية حديث النبي واتو أرني عليه الصلاة والسلام أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك أمانة أقود عندك كو آمنتي در عليك كو آمنتي أنا مسلم تالو آمني مسلم نمدي وجهك كم دوبين دين تالها حمين تاسال هو آمني أدي الأمانة أقود إلى من ائتمنك كيكو آمني إسلام مركا ولا تخن من خانك كيكو خيانة لفتيسا خيانة بان كأرجودنا يا هورن هو خيانة بالنبي كله عليه الصلاة والسلام لأن كل بحسن ميسد وحكلوا حبيب كير عليه الصلاة والسلام مالك لجوري أيها الناس ددوا إنما المؤمنون إخوة أخلاق آدو سرهيسة ينبي نبريا أو إسكو دوبني مهمة كنيسة هرتنا يا هرت قالدا هرت إبليس هرتي سلمان آد نوع أنفعيسة إسكو دوبنا نوع عسى ينبريا إنما إن كلامها المؤمنون إخوة ومؤمنون توا ولا له dad wada dhashay diinka walaalihi mataankaaga ama abaha ama wiilkaagu haduu gaaloobo shaqo isku balihidin innahu laysa min ahlika wa tanabi nuh la yiri wiilkiisa halka laga mariyay innabni min ahli markuu yiri innahu laysa min ahlik innahu amalun ghayru salih marka cagsiisa maxaa imaanaya dadka isku amalka ah isku iimaanka isku diinka ah shahaadteynka wada qiray inay walaal yihiin إنما المؤمنون إخوة وولاله وتحديث ورني حبيبك عليه الصلاة والسلام معني سؤها كالجسد الواحد بكدغيهن مسلمين تساسي كدغيهن جسد كليا جسد كادي مركا حوين كمد حنون قبطه انت جسد انتي سكلا حنون كأنك نمهيو وانا سكسي حالنا ما أورانيان وانا هرسينا ما أوران كران لكن وحي سوي يرانيان دمان تود حمد هيسه qannada haysa iyo saarka dhafarka dikaanka haya qofka halka ka haya ya jirka dhamaantii ula dhafraya oo mesela hadii ciidiye ka baxdo ama madax laga hayo jirka intiisa kale ma oran karo halkaas nabar ku yaala ama madaxaas xanuunay ma juu seexdaan ma oranayo ma seexan karo maxay waa dhamaantood way isku xiran yihiin waa iradooda isku xiran sida oo kaleeto ya marka muslimiintu walaal u yihiin oo isu xiran yihiin waa sidii ahaan jireen ragii waaweynaa oo nabiga ka shidaal qaatay calayhi salaatu wasalaam ninka ganacsadaha markii loo yimaado waxaa la yidhi oo ninku markaa uu ganacsi ka iibsanayo wuxuu oran jiray anigu saaka waan bilowday bal ninkaa walaalkii oo dukaankiisa ka iibso bal isaganu ha bilowdee laakiin maantay waad aragtay dadka waa loo kala yeeranaya xayisiis baa la samaynayaa si dadka looga soo jiito oo beecba adiga uu kugu koobnaado baa loogu talagelaya badeecada baa la jabinaya xasbuna allahu nicma alwakiil waxaa dhacay nabiga dabadii wax aad iyo aad u falxun calayhi salaatu wasalaam wax aad iyo aad u falxun oo warbixintiisa nebiga uu ka xanaaqayo yaa dadkii walaalaha mu'miniinta dhexdooda dhan kastaba ka dhacay jihaadkii waatay ahayd nimanka iyagoo wada sakaraad ah kabab xoogaa biyaa loo keenay kan inta la siiyey uu yidhi kaa xiga iga darana sii kaa markii loo geeyey kaa asaga sidaa oo kale uu yidhi ilaa kii u dambeeyey markii loo geeyey uu yidhi ninkaasa iga daran dabeedna kii u horreeyey dib loogu soo celiyey mase naftu waa ka dhacdayba kii kale dhammaantood iyagoo biyo cabin bay wada dhinteen iyagoo marka maxaa yeelay jasad waaxida ka dhignaayeen nebiga hanuunkiisaas iyo waanadiisaas inama almu'minuuna ikhwa nimankii fahmay haddana dhaqan geliyay ahaayeen allah heerkaana gaarsiiye dadku waxay isku laynayaan ikhwanimadaasay ka tageen muslimiintu caalamka meelay joogaanba dhulal baa laisku haystaa maalal baa laisku haystaa daaq baa laisku haystaa geel baa la kala dhacayaa maal baa la kala dhacayaa waa la is afargaadaynayaa waxaas oo dhan
dad walaalo ah oo isjecel waxay isku quuraan maaha maadaama ayan ahayn walaaltinimada markii laga tegey yaa xumaas la dhex dabaashay oo wax walbaba maantay aan dadkii lagala gabanaynin oo lagu samaynaya لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك